mid ka mid ah shirkadda diyaaradaha SAS ee Scandinavian Airways oo ka duushay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden kuna sii jeeday magaalada Malaga ee waddankaasi Spain ayaa lagu soo waramayaa markii ay duushay oo ay hawada gashay daqiiqado kadib ay dib ugu soo laabatay halkii ay ka duushay oo ahayd gegida diyaaradaha Arlanda ee magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Arrintan ayaa lagu soo waramayaa in ay timid ka gadaal markii mid ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaaradda uu arkay jiir ama dooli dhex socdo diyaaradda gudaheeda, markaasoo uu ka bilowday diyaaradda buuq iyo cabsi soo wajahda rakaabka qaarkood oo aan jeclaysanaynin dooliga ama jiirka. Taa ayaa keentay ayaa la leeyahay kuna qasabtay kabtankii diyaaradda hagayay inuu dib ugu soo celiyo bartii uu ka duulay oo ahayd Arlanda International Airport. Waxaana la sheegayaa in diyaaradda SAS laga wada dejiyay dhammaan rakaabkii saarnaa iyo sidoo kale agabkoodii oo la sheegay in lagu wareejiyay diyaarad kale oo ay leedahay isla shirkaddan Scandinavian Airways ee SAS. waxaana lagu soo waramayaa rakaabka saarnaa diyaaraddan kuwooda ugu badan in ay ahaayeen taageerayaasha kooxda AEK kuwa oo ciyaar saaxiibtinimo iyo tababarba ku lahaa magaalada Malaga ee dalkaasi Spain. waxaana la soo warinayaa in taageerayaashu ay ku jirtay degdeg aad u xooggan maadaama kooxdoodu ay ku lahayd halkaasi kulan ciyaareed aad u xiiso badan. diyaaradda cusub ee la saaray ayaa rakaabka ka qaaday gegida diyaaradaha Arlanda International Airport ee magaalada Stockholm ee caasimadda waddankaasi Sweden, iyadoo si nabad ah oo badqab ah kaga degatay magaaladii ujeedku ahaa ay u socotay ee Malaga, halkaasoo taageerayaasha iyo rakaabkii kale ee caadiga u saarnaa diyaaradda ay si nabad ah uga degeen. arrintan ayaa dad badan la yaab iyo amakaag ku noqotay maadaama diyaaradda oo hawada ku jirto la arkay hal jiir ama hal dooli, taa oo sababtay in si degdega diyaaraddu usoo kala wareegto uguna soo laabato halkii ay ka duushay. dabadeedna rakaabkii iyo agabkoodiiba laga wada dejiyay oo diyaarad cusub la saaray, kadibna baaritaan lagu bilaabay si jiirta ama dooliga ku dhex jiro diyaaradda looga saaro, dib u habeynna loogu sameeyo. halka warka kiisa ugu doorkaloon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.